السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي لدلكيما ميل كastoo aad dunida ka joogtaan aad baan idin salaameynaa halka aad naga daawanaysaan waa Hattrick Official haday tahay markaa kugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar like iyo share ta nagu caawi commentigaagana dhiirigelin ayuu noo noqon doonaa insha Allah hadaba daawade ku soo dhow muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa hadii Ilaahay uu karaali noqdo faa'iidooyinka وليهاي قرآن كريم وحاجرة فائدوين فربضان أو قرآن كليهاي بس هل كان كما سوكو بكرنو وحان كسو قادن دونا لور فائدو إن شاء الله بس أقو هورين هادبا فائدة قرآن كريم يقول كأيبه أيامانتا قف ولبوحو كدكتي ميد إسكا سهلان بس لكن أقول ما أهن ميد سهلان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسوح كل يهاي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رسول كان صلى الله عليه وسلم وحاويري إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه marka waxaan filayaa barnaamijkan inuu aad noo anfici doono waxaan ka codsanayaa daawade inaad nagu dhiirigeliso in barnaamijyo aynkaan oo kale aan soo diyaarino haddaba hal iyo labo waxaan sheegi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay quraanka kariimka mar waliba adiga aad aqriso waxaad ka helaysaa faa'iidooyin sida inuu ka tago walwal iyo walbahaarka ku haya labo sidoo kale quraanka waxa uu markaasi ka saacidi doonaa in nafsadaada uu wanaajiyo mar walbana uu ka dheereeyo fariimaha uu shaydaanka ku soo dirayo si la mid quraanka qofka mar waliba akhriya waxa uu dareemaa mar waliba kalsooni wuxuuna rajeeyaa rajo tan ugu wanaagsan oo maalinta qiyaama inuu muqarrabiinta iyo sidoo kale dadka ugu wanaagsan uu markaasi la soo bixi doono sidoo kale hadii quraanka aad wehel ka dhigato waxa uu maalinta qiyaama ku noqon doonaa mid ku shafaaca qaada Ilaahay ha nagu daro dadkaasi waxaan rajeynayaa bisha barakaysan ee Ramadaan in ay soo dhowdahay dhowr cisho kaliya inaga harsan tahay waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryeynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu markaasi nooga dhigo wehel annagana aan ka dhigano wehel haddaba daawade ogow haddii markaasi jadwal aad u samaysato in aad quraanka qaybto waxaad samaysatay wax wanaagsan waxaana markaasi fursad aad u heli doontaa ugu yaraan in aad hal mar dhamayso quraanka laakiin waxaan kuu sheegayaa in aad ku dadaasho si ugu yaraan aad u dhamayso bisha barakaysan ee Ramadaan 2 jeer ogow haddii maalintii aad akhriso hal juz 30 cisho ee Ramadaan ayaa ku soo koobmaya 114 suuradood una ka kooban yahay 30 juz haddii aad maalintii 2 juz akhrisana waxay noqon doontaa in bishii aad dhamayso 2 mar haddii 3 juz maalintii akhrisana waxay noqon doontaa in aad dhameyn doonto quraanka bisha barakaysan ee Ramadaan 3 jeer haddaba waxaan rajeyn doonaa in markaasi aan ka faa'iideysan doono waxaan rajeyn doonaa qof waliba markaasi jadwal inuu samaysan doono saacad kasta uu akhrin doono wixii Ilaahay halal siiyo adaabadeed waxaan filayaa in aan ka wada faa'iideysan doono bisha barakaysan ee Ramadaan maadaama ay tahay bishii la soo dejiyay quraanka haddaba daawade waxaan rajeyn doonaa inaad markaasi jadwal u samaysan doonto una diyaar garoobi doonto ugu yaraan 2 mar in aad dhamayso 114 suuradood ee quraanka kariimka uu ka kooban yahay waxaan rajeynayaa in
aad markaasi ka faa'iideysan doonto bishan barakaysan ee Ramadaan oo inooga harsan dhowrka cisho. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabad nagu gaarsiiyo si markaasi annaga aan uga faa'iideysano bisha khayrka markaasi lagu soo ururiyay. sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa xanuunada markaasi jira in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga ilaaliyo. dadka markaasi uu soo haleelayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu caafimaad ugu bedelo oo uga dhigo mid dambi dhaaf ah. dad u mahadsantiin quraankana waa inoo daawo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo insha Allah. balanteena waa ka faa'iideysiga quraanka kariimka ee bisha barakaysan ee Ramadaan iyo waqti waliba inaan haleelno wehelna aan ka dhigano. daawade waxaan rabaa in aan halkan kusoo gabagabeeyo videoga wixii aan saxay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa i waafajiyay. wixii aan qaldayna shaydaan iyo nafteeda ayay ahaadeen. si la mid ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan weydiisanaynaa khayrka kan ugu wanaagsan iyo sidoo kale in uu na waafajiyo in aan saaxiib la noqono quraanka. daawada haddii aad ka heshay videoga fadlan like saar, share garay, commentigana waa inoo muhiim inaad nagu dhiirigeliso videoga xiga intaan dib ugu kulmi doono. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.